kani waa Basadir waa samarka Soomaaliya laga hadlayo ee marka kale waa Ibrahim Mustafa ama King Boos mahmaah Soomaaliyeed oo hore waxay oran jirtay geelu haduu labada adino dambe isaga habeediyo waa caadadiis laakiin haduu labada hore ku daro waa gadu la soo baxay hada Basadir waynu ku naqaan inuu inoo majaajileeyo laakiin hadii uu caawo hobalnimo iyo fanaannimo ku darsaday waa gadu la soo baxay waxaase muuqaalkan iyo muuqaalo kale oo aan soo arkay bacdayn u yihiin in ninkan yahay oday soo qablamay kaasoo maslaxayda dalka Tansaaniya dansan jiro daaran jiray sanado waa dabayaaqadii 2019 isla sanadaaba wuxuu u jahaysay dhanka iyo YouTube-ka si uu komandiyaan u noqdo isagoo ay garbihiisa wehelinayaan idil iyo asur mayd u leeyahay Cabdulugus Farxaan Dirac Jaqalabir Amradka iyo Gafane isbahaysigii xulufada ka dhaxeeyay in doora markii ay ku shaqeynayeen oo ay shabakad isku xiran ahaayeen waxa soo dhaxgalay nin Farxaan Dirac la yiraahdo oo Soomaaliya kaga soo biiray xulufada iyo isbahaysiga isbarasho iyo wada shaqeyn la mahdiyay kadib waxa dhacday subaxii saakaya halaanta af Soomaaliga ee BBC inay wareysato Basadir kaas oo yiri waxaan rabaa inaan imaado dalka Soomaaliya oo aan jeclahay inaan imaado hadii aan helo cid taageerto oo iga bixisa dhaqaalaha aan ku soo baxayo bulshada Soomaaliyeed waa kuwa isweydiinaya su'aalo kooxa kuwaas oo ah maxay tahay sababta uu Basadir u leeyahay lacag baan rabaa aan ku imaado Soomaaliya iyadoo ay daawadaan malaayiin Soomaali ah channelkiisa maxay tahay sababta Farxaan Dirac uu uga bixin la yahay jawaab cad ama u dhaqaalaha uga bixin waayay Basadir iyo imaashihiisa iyo tigidhkiisa sidaa darteed waxa laba huraan noqotay inaan jawaab ka siiyo bulshada Soomaaliyeed su'aalaha ay soo weydiiyeen intii aan ka gaari karo oo karaamkayga ah su'aalahaasi waxay noqonayaan channelka horta aad daawataan oo malaayiintu daawato ma ahan channelka Basadir ee waa channelka Farxaan Dirac oo ay Soomaalidu leedahay balse marka la eego channelka uu leeyahay Basadir waxa ku xiran bulsho gaaraysa 82,000 oo qof kuwaas oo ah bulsho Soomaaliyeed badidoodu boqolkiiba 99 ay Soomaali yihiin iyadoo ay sidaa tahay oo dadka cadadkoodu uu yar yahay haddana ma daawadaan oo ma daneeyaan marka ay luuqadooda tahay oo muuqaalka uu ciiriinka yahay se waxay ka jecel yihiin marka la soo bisleeyo oo dabka laga soo qaado waana sababta ay ugu filnaan weyday lacagta ka soo baxday inay safar ku aadaan ha joogtee inay noloshooda ku dabartaan isaga Gafane Mayduleeye dhaawac karsada iyo Farxaan Dirac iyo Jaqalabir waana sababta uu Basadir maanta u codsaday cid garab dhaqaale ka siisay imaashaha Soomaaliya markaan u soo laabanna su'aashii ahayd Farxaan Dirac muxuu ugu bixin waayay dhaqaalaha markaan eego gobonimada Soomaali lagu yaqaan jeefurnaantii soo dhaweyntii iyo wax horitaankii iyo martisoorkii waxaan diyaar u ahay Basadir iyo xulufadiisaba inaan keeno dalka Soomaaliya markaan halka iyo meel magac leh uga soo hara jawaabihii iyaga ahaayee koobnaa waxaan u soo gudbi doonaa waxa jira maanta muuqaalkii xifaaro badan oo ka dhexdhacday oo ahayd idil iyo asur in ay bixinayaan dhalinyarada Soomaaliyeed dhaqaale walba oo ku baxaya malaayiin ha noqdee inay iyagu shafka u garaacdeen gabdhihii oo iyaguna inta ka dhiidhiyay baa waxay shafka u garaacdeen Basadir in walba oo ku baxaysa inay iyagu bixinayaan si kastoo aysan u afahmayn in xitaa inta isqoo dhaadhinayo ay ku filan tahay oo inta ay aragti u tahay iyaga Basadirna hal baan leeyahay war afgarooc sadkii uu lahaa seegay baa jiray adigoo qoobka ciyaarka iyo raabka sida u yaqaan sad aad leedahay ha seegine afkaaga iyo qoobkaaga fuul bandhiga nin dhalinyaro oo lagu magacaabo Farxaan Dirac hadba wariyaha BBC da Kawsar Maxamed Cabdullaahi ayaa afka Soomaaliga ku wareysatay Basadir najua ndio nilijua kutokana mtu anaye translate video zangu Soomaali anaitwa Farxaan waan ogahay in Soomaalidu ii taqaano Basadir waxaan ku ogaaday wiil turjuma muuqaaladayda oo la yiraahdo Farxaan Dirac Soomaaliga ayuu af Soomaali u turjumaa translate video ya Kiswahili kwenda kwa Kisomali Basadir ma ogtahay in taageerayaal badan aad ku leedahay Soomaaliya iyo naaytuna soo baahinayay muuqaaladayda iskumana fahansaneen arrinta laakiin markii aan wada hadalnay waan isfahanay hadda aniga iyo isagu dad walaalo oo kala ayaanu nahay tukaongea tukatengeneza mazungumzo mpaka sasa mimi na yeye ni kama ndugu taageerta maxaa fariin ah oo aad halkan ugu gudbin lahayd
ya kwa Somali wanaonisapoti nitasema kwanza shukran, alhamdulillah. Na Soomaalida ay taageertaa marka hore waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin taageeradiina. Soomaaliya waan imaan doonaa hadduu Alle idmo. halkaa ka sii wada taageeradiina ii soo duceeya insha Allah. haddii aan helo qof geeyo Soomaaliya waan iman doonaa.